maanta waxaan idin wadaa fanaan caanka bulshada Soomaaliyeed aniguna waa Libaax Barqiye balaynu ku nasanay heesiisi caan baxay marka hore gadaalna isaga soo noqono kuwa jecel kurbada kaftan kanu dhibo yaanay garaa ku gelin Ismaaciil Danan waa fanaan Soomaaliyeed oo caan ku ah heesaha iyo suugaanta dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu leeyahay cod macaan oo soo jiidasho leh waxaana uu ku caan baxay heeso ku saabsan jacaylka oo midiba midda kale muuq iyo saameynteedu ay badan tahay Ismaaciil Danan waxa uu caan ku yahay heesaha caanka ah ee la daawado isaga oo isku koobsaday laxanka ku luqaynta iyo waliba tumista miisiga heesihiisa inta badan waxa ka muuqda ereyo murti leh oo la xiriira qisooyin jacayl ah oo kor u qaada farxadda iyo nolosha iyo dareenka bulshada waa fanaan si weyn looga jecel yahay guud ahaan dhulka ay Soomaalidu degto gaar ahaan qurba joogta isaga oo ay heesihiisu noqdeen kuwa laga daawado keenaalada kala duwan ee ay bulshada ku kulanto dhawaan ayuu xorriyadiisii dib u helay isaga oo muddooyinkii u dambeeyay ku xidhnaa dalka Mareykanka sida ay sheegeen heladiisu aynu ku wada nasanna haddaba hees ka mid ah heesihiisii caan baxay قف وقفي سقفكيكو وقالي أقرب وقلاد قديسو يقو قنحسن هاي قمو قصرين دوخو قفصاني حل قلبي قاعد شعل وقبور متكالي قبنيني أنا قوم ما ينبرشد مرقورة ما قبيني وفقان شعلها فرحة دانكو قبو ما قياسنا